أهلا وسهلا داوديال meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka sport iyo halo meel kasta aad kala socotaan barteena youtube ciyaaraha latest tube maanta gibi ahaan waxaan ku eegi doonaa kulamada horyaalka Premier League oo la ciyaaray labadii maalmood la soo dhaafay iyo waliba waxaan sidoo kale falqayn ku sameyn doonaa kulamada kooxaha weyn the big six siba sababta keentay in kooxda United ay baraajo gashay halka Chelsea, Liverpool iyo Tottenham ayaan si goona ku eegi doonaa barnaamijkeena soo kale waxaan eegi doonaa ciyaaryahan Ronaldo ku guuleystay laacibka sanadka 2020 balse waxyaabo kale ayaa dhacay barnaamijka ka soconta haska bedelin channelka waxa soo kale eegana ciyaaryahan Mesut Ozil ka hadlay xaaladda kooxda kubadda cagta Arsenal siba the young stars iyo falaqeyn kale oo dheeraad ka soo doonta barteena hadaad nagu cusub tahay maatay marka hore soo booqatid subscribe noo star soo kale hal maalin gambeelka soo dhasho muuqaal kasta cusub aan soo dhigno barteena youtube-ka ciyaaraha latest tube waxaa kaloo jiro kulamo kale oo ka tirsan Premier League oo maanta la ciyaarayo barnaamijka aad kala socon doontaa inkastoo ognahay in horyaalada kale ee qaaradda Yurub sida Bundesliga Jarmalka Serie A Talyaaniga La Liga Spanishka iyo Ligue 1 Faransiiska laga dhasanayo balse Premier League ayaa si cawla ku socda wow bridam ciyaartu way socon doontaa kulamada la ciyaaray natiijooyinka haddii aan eegno Leicester iyo kooxda United ayaa 2-2 ku kala tageen ciyaar Rashford Bruno Fernandes ayaa shabaqa soo taabteen kooxda halka kooxda kubadda cagta Leicester goolkii barbadhaxa goolkii la yaab kale u dhal ciyaaryahan Vardy kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa 3-1 dirtay Crystal Palace Arsenal ayaa soo kale 3 dirtay kooxda kubadda cagta Chelsea La Gazzetta Xhaka iyo Saka ayaa shabaqa soo Fulham iyo Southampton ayaa ismari waayay eber ku soo dhamaaday kulankooda Man City ayaa 2-1 dirtay kooxda kubadda cagta Newcastle United labada gool ee Man City waxa kale leh ciyaaryahan Gundogan iyo waraad ayirka kooxdaasi Torres Sheffield United guriga joogta ayaa Everton hal gool u adkaatay ciyaaryahan Sigurdsson ayaa goolka kooxda kubadda cagta Everton u dhaliyay kulamada kale ciyaaray la ciyaaray hadii aan eegno kooxda kubadda cagta Leeds ayaa 1-1 dirtay kooxda kubadda cagta Burnley ciyaaryahan Bamford ayaa gool kilaad u dhalay kooxdaasi West Ham iyo Brighton ayaa 2-2 ku kala tageen halka Liverpool iyo West Ham iyaguna ay West Brom hal ku kala tageen Wolves iyo Spursna waa 1-1 waxaan moodaa inay yihiin kulamada kula yaab kale hadii aan eegno kooxda kubadda cagta United barbardhixi waxa la dhihi karaa waxa sababay in ciyaaryahan James uu ku bilaaway kaasoo heed inaysan fiicin inuu ku bilaawo kulanka noocan oo kale soo kale kooxda United ayaa moodaa inay difaac ciyaarayaan dhanka kale kooxda United Boska Wan-Bissaka Machuur ciyaaryahan buuciyay qaab kale ay ku soo galay marka taas ayaa la dhihi karaa waxa kale ftay in United ay galaan barbadhac soo kale sababaha keeni kara ama keenay in kooxda kubadda cagta Chelsea loo adkaaday ayaa waxa dhihi karaa in tababaraha kooxdaasi Lampard uu isticmaalay qaab kale kaasoo in Timo Werner uu ka ciyaarsiiyay lambarka 11 halka Werner ku fiican inuu ka ciyaaro weerar siba lambar 9 waxa soo kale dhigi kara in Lampard uu si degdega bedelaad ku sameeyay ciyaaryahan Timo Werner isagoo keenay Jorginho waxa waqtigan oo kale hadii kooxda lagu leeyahay goolaal waxa fiican inaad weerarka badisid marka wuxuu keenay inuu keeno Jorginho kaasoo kale ftay inuu soo kalto qasaarey gool kulaada heshay kooxda kubadda cagta Blues dhanka kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa hal la dhaafiyay kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion tan ayaa inta badan lagu eedeeyay in kooxda kubadda cagta Liverpool ay isisiyeen kalsooni aad iyo aad u weyn taasoo inay isdheen kooxda West Brom waa ka badin karna hogaankana waan dheersan karna tababaraha kooxdaasi Liverpool ayaa isagoo la hadlay wargeyska The Bild sidaa sheegay marka taasi ayaa lagu xil karaa in ay noqotay kalsooni aad u badan inta badan ciyaartooyda diiradda maysan saarin inay badin karaan waxa ay isdheen waan ka badinayna West Brom tan ayaa laga yaabaa inay sabab tahay in Liverpool broga loo qabtay soo kale kooxda kubadda cagta Wolves iyo Tottenham ayaa soo kale broga loo qabtay tababaraha kooxdaasi Spurs Jose Mourinho inta badan wuxuu ciyaaraa difaac hal gool ayuu helay marka wuxuu bilaabay inuu difaacdo goolka uu helay marka hal gool hadii heshid waxa u baahan tahay
inaad weerar zaada qaadid si aad ciyaarta u dili lahayd aad gooshii aad u heleed taasi ayaa kaleeftay in kooxda kubadda cagta Wolves ay helaan goolkii baradhaxa daqiiqadii ugu dambeeyay marka tani ayaa waxa eed loo saari karaa tababaraha kooxdaasi ee Jose Mourinho kulamada kale oo maanta la ciyaaray haddii aan eegno Crystal Palace iyo Leicester ayaa isku dhigan 6 galabnimo halka Chelsea qaabili doonto kooxda kubadda cagta Aston Villa 8 qadar 30 daqiiqo oo fiidnimo Everton iyo Man City ayaa isku dhigan 11 habeenimo haddii aan cagayo aadno abaalgudka la siiyay ciyaaryahan Ronaldo waa abaalgudka ciyaaryahanka ugu wanaagsan 2020 hase ahaatee Ronaldo ayaa wuxuu sameeyay fal kale oo caadi ahayn oo ay ku dheehan tahay waxa la yiraahdo geestiga luqadda Ingiriiska kaasoo moodo inuu siiyay abaalgudkii la siiyay ciyaaryahan Lewandowski Ronaldo ayaa arintaas wuxuu yiri runtii haddii loo hadlo daacad ahaan waxa ku guuleystay ama noqday ciyaaryahan ku wanaagsan sanadka 2020 ciyaaryahan Lewandowski oo kooxdiisa gaarsay soo kale ku guuleystaan Champions League Bundesliga iyo koobka kale dalkaas leeyahay the Copa di German marka isaga ayaa ciyaaryahan u qalma inuu ku guuleysto abaalmarintan inkastoo ay codeeyeen jamaahiirta taageerayaashan ku leeyahay adduunka aad u fara badan Instagram-ka Twitter waana ciyaaryahanka ama la dhigi karo shakhsi u taageerada badan Instagram-ka ilaa 70 milyan ayaa laga yaabaa in uu haysto Ronaldo marka taas ayaa ka saacday inuu ku guuleysto abaalmarintan oo lagu codeeyo xagga internetka marka wuxuu arkay in uu isaga ku guuleystay balse dhan kale haddii la eego ama cadaaladnimada la fiiriyo inuu u qalmay ciyaaryahan Lewandowski inuu ku guuleysto abaalmarintan la yiraahdo the best player of the year sida ayuu sameeyay Ronaldo waa runtii arimo fiican oo ay mudan tahay in lagu daysto ugu dambeyntii ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa ka hadlay guushii ay gaareen kooxda kubadda cagta The Gunners ay 3 jireen kooxda kubadda cagta Chelsea waxaana ciyaaryahan Mesut aad u amaanay daayirta kooxda kubadda cagta Arsenal oo ay ka mid yihiin Shakar Sakar iyo waliba Martin qaabka u ciyaareen uu yiri waa mid fantastika waa mid aan caadiyan runtii waana kule mustaqbalka kubadda cagta ayuu sida u soo raacay Mesut Ozil ayaa soo kaleetay bartiisa Twitter ku soo qoray in arrintan ay tahay mid cajaa'ib leh in kooxda kubadda cagta The Gunners siba daayir aad u wanaagsan oo inta badan ay kariyihiin 23 jir iyo wixii ka soo soo ay qaraaceen kooxda weyn ee Chelsea oo maalmahan la qaban waayay marka tani waxa ay marqaati u tahay in daayirtan iminka u ciyaarta Arsenal ay yihiin kuwa wanaagsan mustaqbalna ku leh kubadda cagta siba kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u baahan soo kaleetay waxay u baahan tahay in la siiyo fursad dahabiya si ay ugu soo ciyaarta hor u soo wadalayeen ay ugu soo ambaxleen marka Arsenal ayaa ilaa iminka ku jirta kaalmihii ugu dambeeyay horyaalka Premier League haddii la eego kala horeynta Chelsea ayaa soo kale ku jirto kaalintii kaalmaha ugu wanaagsan barnaamijka sport